الحمد لله رب العالمين marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay daafaha caalamka iyo dalka ka joogaaniin anigoo magacaygu yahay Aynaashi Saciid background-kayga oo bartayna cilmiga shaybaarka iyo public health-ga waxaan doonayaa xanuunkan coronavirus-ka oo problem-ka weyn adduunka ku haya in aan Soomaalida overview ka siiyo. haddaba xanuunka coronavirus waa large group of virus waa fayrasyo isu tegay kuwaas oo sababa coronavirus-ka wuxuuna degaa sanbabada ayuu degaa wuxuu sameeyaa severe acute respiratory syndrome wax la yiraahdo ayuu sameeyaa wuxuu xiraa neefsashada ayuu xiraa collapsing ayuuna sanbabada ku sameeyaa sidaan la socono sanbabadu waxay bedelaan hawada waa meesha hawada lagu kala bedelo waa sanbabada sidoo kale xanuunkan waa zoonotic disease waa transmitted between animals to human xayawaanka iyo bini'aadamka ayuu u kala gudbaa epidemiologically markaan eegno xanuunkan epidemiologic ahaan waxa la yiraahdaa pandemic weeye pandemic waa xanuun ku baahay developed country-ga iyo underdeveloped country-ga waa xanuun ku baahay adduun weynaha ku baahay weeyaan oo aan weli loo helin strategic plan ama qorshe aan loo helin lagu dabar jiro xanuunkan sidoo kale xanuunkan haddaan pathogenicity-giisa wax ka saabto ama qaabka uu wax u saameeyo from A to Z marka ugu horeysa marka uu soo galo bini'aadamka ama qofka uu soo galo xanuunkan waxa uu degaa host cellska ayuu degaa oo attack gareeyaa deetana penetrate ayuu ku sameeyaa waa ka dhex gudbaa marka uu ka dhex gudbo release ayuu sameeyaa waa ku fidaa marka uu ku fido jirkeena bini'aadamka waxa ku jira afar difaace baa jirkeena bini'aadamka ku jira IgG, IgM, IgA and IgE IgG iyo IgM ayaa shaqada ugu weyn ee jirka qabta IgG-gu wuxuu sameeyaa routine killer baa la yiraahdaa 24 hours si uu jirka ugu jiraa oo wuxuu dilaa wixii virus iyo wixii fungus iyo wixii bacterial ayuu dilaa sidoo kale xanuunkan wuxuu isu soo ekaysiinayaa IgM-ka ayuu isu soo ekaysiinayaa deetana IgG-gu wuxuu u aqoonsanayaa inuu yahay IgM-kii saaxiibkiisa halkaas ayuu ku badanayaa replication ayuu sameynayaa sidaas ayuu qofkii waxa weeye xanuun uga sababayaa qofkiina ugu gudbinaya dadkii kale xanuunkan wuxuu ka dilaacay markiisii koowaad outbreak ka sameeyey Wuhan ee dalka China ayuu outbreak ka sameeyey 2019 kiisaskiisu waa ay yaraayeen balse 2020-ga excessive ayay noqdeen oo aad ayay u farabateen xanuunkan haddaan meelaha aan u socdo oo ah preventionkiisa iyo diagnosis-kiisa preventionkiisa xanuunkan waxaa la sameynayaa wash hands in dadku ay gacmaha dhaqaaneen sidoo kale inay use mask properly in dadku ay isticmaalaan maskiga sidoo kale inay dadku sameeyaan half temperature record jacket waxa la yiraahdo oo qofku temperature-kiisa uu si joogto ah ula socdo sidoo kale qofku waxa weeye waa inuusan gacmihiisa uusan ku taaban gacmo wasakhaysan afkiisa iyo sankiisa inuusan ku taaban oo iska ilaaliyo sidoo kale qofku waa inuu joogaa waxa weeyaan homeskiisa hadduu xanuunkan isku arko si uusan dadka waxa weeyaan uusan gudbin sidoo kale waa inuu qofku ka fogaadaa meelaha ay dadku isugu yimaadaan oo large crowds-ka la yiraahdo waa inuu ka fogaadaa diagnosis-ka xanuunkan haddaan u gudbo xanuunkan waxaa lagu baaraa qaab badan ayaa loo baaraa PCR machine la yiraahdo la baara oo polymerase gene reaction la yiraahdo mashiinkaasi wuxuu tiriyaa oo emulsifying ku sameeyaa RNA-ga bahalkan uu ka samaysan yahay countable ayuu ku sameeyaa deetana result-ga ayuu soo saaraa sidoo kale xanuunkan waxaa lagu baaraa enzyme linked immunoassay absorbency ELISA mashiinka la yiraahdo sidoo kale waxaa lagu baaraa rapid test COVID-19 IgG iyo IgM-ka positive link iyo control link la tusaya sidoo kale haddaan xanuunkan u gudbo treatment-giisa wax treatment-iyo male waxa weeyaan marka wax sidaan la socono virus-ku wax treatment-iyo male bacteria laakiin qalajiyo unbaa qofka la siiyaa idiopathic baa la yiraahdaa qofka resuscitation baa loo sameeyaa wax la yiraahdo in qofka haddii qandho hayse qandhadii laga jabiyo oo lagala tacaalo problemka respiratory-ga lagala tacaalo oo problemkaas la dejiyo maaha qofkan wax daawo ah oo sax ah oo la yaqaano oo male
marka recommendation-ka u dambeeya oo aan bulshooyinka Soomaaliyeed siinayo waxa weeye in dadka loo sameeyo awareness wacyigelin in loo sameeyo dadka inay dadku waxa weeye nadaafadda ilaaliyaan in qof kasta uu nadaafadiisa ilaashado in dalka dadka soo gelaya waxa weeyaan attention-kooda la dheereeyo oo waxa weeyaan in la baaro oo waliba inta la baaro aan looga harin quarantine houses loo sameeyo qolal lagu takooro oo ay 1 week ay ku jiraan in loo sameeyo intaasaan kusoo gabagabaynayaa lecture-kaygii aad iyo aad ayay u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi